kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijyada dhanka saxaafadda ee aad aalaaba ka dhagaysataan kana daalacataan wariyaha.com oo markaasi aad ka heshaan macluumaad kala duwan oo ku saabsan dhanka saxaafadda akhyaaray bahda saxaafadda oo dhan ee markaasi cashirada dhanka saxaafadda kala socota wariyaha.com cashirkeenna maanta waxa uu markaasi ku salaysan yahay islamarkaana aynu ku qaadaadhigi doonaa umuuraha dhanka warka waxaa jira in inta badan aad idinku ka dharagsan tihiin ama aad si weyn ula socotaan shuruudaha warka marka uu qofka qoraaga ama warqaruhu uu doonayo inuu war qoro shuruudaha uu marayo inay markaasi yihiin kuwo aad horay u soo ogaateen ama aad u soo barateen hase yeeshee waxaa jira marka qaarkood isku dheelitirka warka inuu u baahan yahay taxadar aad u ballaaran oo loo baahan yahay qofka saxafigaahi ama warfidiyeenkaihi inuu si weyn uga fikiro saamaynta warka waayo warka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu daran ee ka baxa idaacadda kaasoo keeni kara wejigabax ku yimaada xaruntaasi ama dhibaato ku timaada xaruntaasi waa haddii warka markaasi xilliga aad qoraysid uu noqdo midaadan si weyn uga fiirsanin marka laga soo tago markaasi 5wh ama markaasi shanta su-aalood ee laisweydiiyo ee kala ah where when why what which how marka ay timaado kuwaasi ayaa haddana waxaa jira in qofka markaasi warka samaynaya ama warka qoraya uu u baahan yahay inuu wax fara badan ka fiiriyo sida caadiga waxaynu ka warqabnaa in baragraafka koowaad ee warka aad qoraysid in ay shardi tahay in 3 laga helo oo kale ah what iyo when oo ah maxaa dhacay xaggee ka dhaceen iyo goormay dhaceen taasi inta badan waa mid la isku raacsan yahay laakiin cashirkeenna inta badan maanta wuxuu ku salaysnaan doonaa warka dheer khaladaadka uu leeyahay iyo dhibaatada uu leeyahay iyo ciladaha ku imaan kara iyo warka gaabani muxuu kaga duwan yahay warka dheer haddaba aynu ku bilowno ciladaha warka dhaadheer maxay yihiin ciladaha warka dhaadheer cilado fara badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ah qodobka koowaad qoraalka oo aan taya lahayn oo tayabeela akhristaha oo ku daala ku celcelin badan xirfad liidata magaca iyo xilka oo soo noqnoqda war la qaba xiise ma leh xayeysiin isagoo u ekaada isku dhaayacsanaan ku timaada warkaasi iyo isagoon habaysnayn iyo isagoon ku dhisnayn sharcigan hore u soo sheegnay ee ahaa 5wh-da aan sii qaadaa dhigno maxay kale yihiin umuurahani warku hadduu markaasi uu noqdo qoraal tayala-aana waxaa markaasi iska cad in qofkii uu ku caajisi doono sida caadiga ah waxaa kaloo inta badan jira wararkeenna marka aynu qorayno dhibaatooyinka ugu weyn ee wararka aynu qorna inaga haysta waxay tahay isagoo dheeraada maxaa dheerayntaasi keena waxaa keena dheerayntaasi in qofka uu ku celiyo magaca iyo xilka qofkaasi tusaalahaanban ayaan soo qaadanaynaa haddii aad qortid gudoomiyaha guddiga fulinta ee ururka ahlusunna waljamaaca sheekh maxamed yuusuf xeefow haddii hal mar aad qortid waxaa inta badan dhacay in wariyaashu markay warka qorayaan ay haddana baragraafka labaad ku soo celiyaan iyagoo isla magacii isticmaalaya oo dhahaya ama qoraya gudoomiyaha guddiga fulinta ee maamulka ahlusunna waljamaaca sheekh maxamed yuusuf xeefow markaad 2 jeer ku soo celisid magaca saas u dheer taasi waxay ku tusinaysaa in baragaraafyadii ay kaa buuxinayaan marka warka waxaad iska ilaalisaa marka aad qoraysid inaadan inta badan ku soo celinin xilka qofkaasi oo hayo iyo magaciisoo saddexan taasi waxay keenaysaa in baragaraaf kasta ood qortid aad isaga ka bilowdid islamarkaana ay keento qoraal fara badan iyo dhagaystiyoo ku caajisa markaad hal mar sheegtid marka labaad qofka kor ayuu la socdaa wuuna ka warqabaa sidaa daraaddeed iska dhaaf oo u isticmaal xeefo ayaa waxa uu yidhi intii aad mar kasta ku soo celin lahayd gudoomiyaha guddiga fulinta ee maamulka ahlusunna waljamaaca sheekh maxamed yuusuf xeefow marka magaca oo la soo celceliyo xilku wuxuu noqonayaa in markaasi qofkii warkii uu ka xiisa dhaco waayo taas ayaa keenta marka lagu leeyahay warku xiise ma laha ama dhegaystuhu uu ka tago waxaa kaloo markaasi iyada laftigeeda jirta war la qaba xiise ma leh haddii warku uu ahaa mid hore u jiray waxba background ha uga samaynin ee wixii markaasi dhacay qofka uga sheekee soona koob isku dhexyaacsanaan ayaa sidoo kale jirta oo baragraaf loogu talagalay in kor la saaro ayaad dhexda keenaysaa kii dhexdana waxaad keenaysaa kor
marka isku miisaan hadallada aad qoraysid warka aad qoraysid waa inuu noqdaa mid miisaan leh isla markaana aad kala garan kartid baragaraafkee ku habboon allaylaha in kor la geeyo kee ku habboon in dhexda la keeno keese ku habboon in markaasi meesha u dambaysa la geeyo sidoo kale waxaa jira warka dheeri inuusan ahayn mid habaysan sharcigana ka fog oo markaasi sidii loogu talagalay aadan u samaynin maxay yihiin faa'iidooyinka warka gaabani warka gaabani waxa uu noqonayaa mid qoraalkiisa uu tayo leeyahay qofka oo raba qoraalka inuu sii socdo ama inuusan ka dhammaan oo si wanaagsan uu u dhegaysto warka oo xiise leh xirfad ka muuqata wax soo laalaabta ma laha muhiimadda ayuu abbaaraa wuu jaan go'an yahay wuxuuna ku dhisan yahay 5 qodob iyo sharcigii aynu hore u soo sheegnay waxaa laga yaabaa qofka wariyahayii inuu ku fikirayo hadduu 3 baragaraaf qoro war ku salaysan inuu isaga u arko ceeb oo yidhaahdo allah warka aad qortay waa war gaaban amay dadku markaasi u arkaan inuu yahay war gaaban isla markaana aad ku dardartaa wixii adiga jeebkaaga akhyaaray wari waa wixii markaa dhaca waxaad adigu samaysato waa faallo iyo jeebkaaga marka warku hadduu noqdo 3 baragaraaf adiga waxaa muhiima maxaa dhacay xaguu ka dhacay goormuu dhacay wax khasaaraha miyuu keenay intaas ayaa kugu filan maaha inaad markasta soo qaadatid baragaraafyo kaloo dheeri ah kuwaasood markaasi doonaysid inaad dadka ku qancaysid warkana aad ku badsateed ha ka cabsanin warku hadduu xataa 2 baragaraaf yahay waxaa muhiima maxaa dhacay haddii nin uu dilo nin kale warka marka aad sheegaysid waxaa leedahay nin hubaysan ayaa maanta suuqa bakaaraha ku dilay nin ganacsado oo ku noolaa suuqaasi ama ganacsi ku lahaa taasaa muhiima maxaa dhacay nin baa nin dilay goormo ayuu dhacay galabta xaguu ka dhacay wuxuu ka dhacay suuqa bakaaraha taasaa muhiima haddii ninkii la qabtay muhiim haddaan ninkaasi fakadayna kusoo gabagabee gacanku dhiglihii ayaa la sheegayaa inaan gacanta lagu dhigin ama uu meesha ka tegay laakiin haddaad ku fikirtid inaad warka badbadisid waxay noqonaysaa waasi war maaha waa waxaad adigu jeebka ka keentay marka asxaabay markaad warka qoraysaan waa inaad fahantaa khasaaraha uu leeyahay warka dheer waayo warka dheer had iyo jeer khasaare fara badan buu leeyahay sidaan soo sheegnayba ciladihiisu way badan yihiin warka koobanna waa warka ugu wanaagsan ee tayada leh markaad warka samaynaysaan ku xisaabtama faa'iidada iyo khasaaraha warka aad qoraysaan uu keeni karo hana ku xisaabtamina hadduu warkiinu gaabto oo uu noqdo 2 baragaraaf iyo hadduu warkiinu noqdo 9 baragaraaf ha isdhihina ka 9 baragaraaf ayaa wanaagsan waayo ka 9 baragaraaf wuxuu noqon karaa mid isku dhex yaacsan oo aan habaysnayn sharcigan aan ku tirsanayn markaasna aad ku buuxisid ama 9 baragaraaf inta badan aad ku buuxisid magacyada iyo xilka qofka aad ka hadlaysid oo aad dhowr jeer ku soo celcelisid taa macnaheedu maaha inaad qortay war wanaagsan asxaabay markaad warka qoraysaan waxay noqonaysaa inaad raacdaan sharciga idinkoo u hoggaansamaya isla markaana aad maankiina uu ka guuxa ama uu ku jiro maxaa dhacay xaggey ka dhaceen goorma ayay dhaceen waa baragaraafkii koowaad marka aad intaa qoratid waxaad qoran kartaa wixii kale aad ku darsan kartid oo markaas wax xaqiiqda meesha ka dhacaya hana ka xishoonina haddii ay dhacdo in warkiinu uu noqdo 2 baragaraaf oo keliya waayo waxaa muhiima in 2 baragaraaf aad fiirisaan waxaan kaloon kusii darayaa markaad warka qoraysaan haddii ay dhacdo kelimado waxaa jira laga tegi karo oo aan shardi ahayn tusaale ahaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka waxa uu la kulmay dhigiisa dalka talyaaniga waxa uu la kulmay meesha way kaa badanaysaa muhiim maaha waxaad dhihi kartaa madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ayaa la kulmay dhigiisa waxa uu la kulmay haddii aad ku dartid waa busbuuxis laakiin waad soo gaabin kartaa waana ka saari kartaa waxaana jira cashirada soo socda ayayna ku qaadan doonaa hadduu rab raali ka noqdo kelimado fara badan oo laga tegi karo balse cashirkeen toddobaadkan wuxuu ku salaysan yahay in wariyuhu uu kala fahmo warka dheer khasaaraha uu leeyahay iyo ciladaha uu leeyahay iyo warka gaabani faa'iidada uu leeyahay waxaan dareemayaa cashirkeena markaan bilaabayay inaad si fiican ula socoteen idinkoo markaasi ka dhugtay ama si fiican dhageystay aan ku soo gabagabaya cashirkeenna anigoo mar kale idiin dulmaraya qodobada muhiimka ah ee warka dheer khasaaraha uu leeyahay iyo warka gaaban faa'iidada uu leeyahay kow ciladaha badan ee warka badan ama warka dheer waxaa ka mid a qoraalka oo taya beela akhristihii oo kugu daala ku celcelin badan
xirfad la'aan ka muuqata ama xirfadda oo liidata magaca iyo xilka oo soo noqnoqda war la qaba xiisama leh war horey loo sheegay ood ku celcelisid isagoo xayeysiin u ekaada isku dhacyacsanaan ma habaysna iyo isagoo oon sharciga ku tiirsanayn ama aan ku dhisnayn warka gaaban faa'iidooyinkiisa uu leeyahay waxaa ka mid ah qoraalka oo aad u yar isla markaana taya leh qofka oo raba in warkaasi uu sii dhegaysto ama qoraalkaasi uu sii akhristo oo markiiba uu ka dhammaado ase yeeshee qofkaasi uu macnihii ka dhargay warka oo xiise leh xirfad ka muuqata wax soo lalaabta ma laha muhiimadda ayuu inta badan ka hadlaa wuu jaan go'an yahay wuxuuna ku dhisan yahay sharciga intaas waxay noogu dhan cashirkeennii maanta ee aad kala socoteen wariyaha.com waa cabdiraxmaan xuseen fure british oo idin leh waa inoo cashiro kale iyo barnaamijka ka baro saxaafadda wariyaha.com